Chelsea waxaa soo martay maalin ay ku raaxaysatay garoonka St Mary oo marti ay ugu ahayd naadiga Southampton waliba waxay ku garaacday 3 gool iyo waxba maxaynu ka baran karnaa guushii aadka u weyneed oo ay gaadhay naadiga Chelsea oo waxay muujinaysaa Chelsea isla qabsi aad u weyn waliba sideedii kulan ee ugu horeysay horyaalka Premier League dalka Ingiriiska waa koox aan wali dhinaceeda dhulka la dhigin Eden Hazard ayaa ka qayb qaatay 11 gool dhammaan tartamada 11 ciyaarood oo ugu dambeysay oo Chelsea uu ciyaaray 9 gool waa uu dhaliyay halka labada gool ee kalena uu caawiyay waxaan kaloon baran karnaa Royce Barkley waxa uu noqday ciyaaryahankii ugu horeeyay ee Ingiriis ah kaasi oo gool la dhaliyay gool la caawiyay isagoo u ciyaaraya naadiga Chelsea tan iyo Frank Lampard oo sidaas sameeyay 2013 goolkii uu dhaliyay Alvaro Morata waxaa lagu soo dhisay 30 baas waana goolkii ugu baaska badnaa ee xilli ciyaareedkan laga dhaliyo horyaalka Ingiriiska hibadaasina waa mid ay leeyihiin xidigahu Balu ee ku ciyaara garoonka weyn ee Stamford Bridge shalayna marti uu ahaa naadiga caanka ah ee lagu magacaabo Southampton